Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ugu baaqay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay xoojiso taageerada ay siiso dhammaan dowlad goboleedyada dalka dhinaca la dagaalanka argagixisada. Barta uu ku leeyahay X ayuu ku soo qoray Cumar Cabdirashiid, dowladda federaalku waa inay u muujisaa taageero siyaasadeed iyo mid amni oo ku wajahan dhammaan maamul goboleedyada si meesha looga saaro khataraha argagixisada ka hor inta uusan dhammaanin sanadkan 2025. Hadalka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya iyadoo 4 maalmood kadib markii ciidamada ammaanka Puntland ay fashiliyeen weerar ay soo qaadeen Daesh oo ay ku ciribtireen 12 dagaalyahano oo ajaanib ah oo aysan wali dowladda federaalka ee Soomaaliya wali bogaadinin ama taageero dadaalka Puntland ah aysan sheegin. Ka aamusitaanka dowladda federaalka ah dagaalkii Puntland iyo Daesh waxay hoosta ka xariiqday khilaafka siyaasadeed ee daba dheeraaday ee u dhaxeeya Puntland iyo dowladda dhexe, kaasoo soo jiray ilaa December 2022, kaasoo ka dhashay wax ka beddelka dastuurka. Dadka dhaliila siyaasadda dowladda federaalka ayaa ku doodaya aamusnaanta inay meesha ka saarayso kalsoonida shacabka, isla markaana ay walaac xooggan ka muujinayso mudnaanta uu siinayo la dagaalanka argagixisada. Hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo aadaya asagoona deegaan ahaan ka soo jeeda deegaanka iyo dowlad goboleedka Puntland. Puntland oo duqeymo cir iyo dhul ah ka geysatay buuraha Calmis ee gobolka Bari, halkaasoo kooxda Daesh ay dagaalo kula galeen. Dhanka kale, khilaafka Puntland iyo dowladda dhexe ayaa weli xal laga gaarin, balse taas beddelkeedu la dagaalanka argagixisada waa hadafyadii koowaad ee u deganaa dowladda dhexe. Haddana dowladda Puntland waxay dagaal kula jirtaa kooxda Daesh. Waxa isha lagu wada hayaa dadkuna isweydiinayaan falcelinta dowladda ee dagaalkaasi iyo kaalinta ay ka qaadan doonto dowladda dhexe ee federaalka. Xamdaan Sheekh Axmed, TV-ga RTN Muqdisho. Ku dooro xirmada billaha unlimited-ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah. uga shuba ii dahab koodh nambarka xidig 1 eber 1 4 gees.